Waanu dayacnay mas'uuliyadii naga saarnayd qoyska haddaan rag nahay. Marka inaad dhahdid inta iska soo boodid dumar waxaa nalagu abuuray inaan ku raaxaysano logic maaha. Horta Soomaali haddaan nahay dood ma naqaano, sida loo doodo ma naqaano, dood wax looga baahan yahay ma naqaano. Amintay ku tahay ku wanaagsan. Waxaan rabaa haddii la idmo laba qodob inaan wax ka dhaho. Qodob waa ninkan iyo fikradiisa iyo doodiisa. Qodobna waa dooday maxaa tahay. Labadaas qodob baan rabaa inaan isdul taagno saaka iyo habeen iyo subax xilliga ku tahay. Marka horta dooday maxaa tahay. Horta Soomaali haddaan nahay dood ma naqaano, sida loo doodo ma naqaano, dood wax looga baahan yahay ma naqaano. Inteena badan waxaan naqaanaa fadhi ku dir. Marka waxaan daawanayay habeen hore dood ay universal qabatay. Marka 2 nin iyo 3 gabdhood baa doodayay. Dood ma dhihi karo taas marka waxay ahayd fadhi ku dirka naqaana maagta. Niman weerara iyo gabdho isdifaacaya. Maxaa looga baahan yahay? Wax xasiid bay u kacsan. Dood horta maxaa looga baahan yahay? Kow waa in laga doodayo horta bulshada waxa hadalhayn badan ka dhaliya horta waa in laga doodaya waa kow qodob koowaad. Qodobka labaad waa in la helaa laba qolo laba qof oo kala duwan ama ka badan oo laba fikir ka kala aaminsan qodobka laga doodayo. Labada fikirna ay mabda salka ku hayaan meel ay ka duulaan haya. Waxaa kaloo loo baahan yahay qofkan wax daadihinaya inuu yaqaano labadan qolo waxay kala aaminsan yihiin oo wax badan ka soo baaro. Waxaa kaloo laga rabaa waxa qodobka laga doodayo inuu kan daadiyaha wax badan ka soo baaro isagana oo bulshadu waxay ka kala aaminsan tahay uu dood ka keeni karo hadal ka soo saari karo oo isagana uu cilmi badan u hayo oo soo baaro. Markii halka la yimaado labada qolo ay doodayaan waxaa rabaa doodoodu waxaan arkayay qof baa hadlaya qof kale ka feer hadlaya ma naqaan. Qof baa hadlaya hadalkiisa inuu dhameystaa qofkaas. Haddaa hadalkiisa dood ka qabtid note baa la qaataa waa la qortaa. Gabdhaha hadda waxaan u jeeday gabdhaha note-ka inta badan qoranay nimanku iska doodayeen fadhi ku dirarkii way yaqaaneen. Marka fadhi ku dirar lama baahna. Qofka markuu hadlayo waa in hadalkiisa dhageysataa. Oo wax boontiga is leedahay aad ku khilaafsan tahay waa inaad qorataa. Ama mobile ku qoro ama qalin iyo buug ku qoro. Marka waa inaad qorataa hadhow markuu dhameysto inaad ku soo celisaa. Qofkii hadalkii haystay ku dhinac ordiyaan. Markaas wixii muran. Waxaan soo xasuustay fadhi ku diraradii dhalinyaradu fariisan jidheeyo muran jidheeyo. Waxaas kale dood lama dhaho. Marka labada qolo biyo dhacaaduna waxa weeye bulshada inay wax ka faa'iido qodobka laga doodayo. Oo markii labada qolo ay doodaan isqanciyaan meel iskugu yimaadaan bulshaday wax xal u ah oo waxa laga doodayo inay wax ka faa'iidaan. Hadii dooda 1 saac iyo 20 minutes socotay inteeda badan waa daawaday wax aan ka faa'iiday malaha hal xabo kama faa'iido. Waa gabdho istifaacayay iyo niman weerar ahaa. Marka qodobkaas halkaas aan u gudbayaa oo dooda ma naqaano inteena badan Soomaalida wax nagu cusub sida loo doodo marka waa baranayna ayadana marka waxa loo baahan yahay in wax badan laga soxo. Qodobka labaad ninka fikradiisa iyo waxa aaminsan yahay iyo gabdhaha waxa nalagu abuuray inaan ku raaxaysano iyo wuxuu ka hadlay. Wixii soo dhan muran bay ahay muran. Weelku waxa loo baahan yahay qofku markuu doodayo in uu mabaadi'da salka ku hayo hadda meel buu u booday. wax mabda uu aaminsan yahay oo cilmi u leeyahay inta badan ma aha waa dhaqan iyo wax fikirkiisa ah oo aan sal iyo raad lahayn way. Inta badan u badnaayeen gabdhaha inaan ku raaxaysanaa nalagu abuuro oo iyaga raaxadiya u diiday. Gabdhaha kan inaad ku raaxaysatid kaliya lagu abuuro iyaga raaxo ma laha miya.
gabdhaha kale ayagoo raaxo way rabaan. bini aadan way adiga kula mida nafley weeye. maxaa raaxadii u diiday marka raaxa yani inaad ku raaxaysana keliya ma cabitaan la cabaya lagu raaxaysanaya ma meel maxasee camal see ugu raaxaysanaysa. bini aadan kula mida weeye, raaxay rabaan, waxaa rabtidoo kale rabaan. ninka kani waaqic hadda la joogo kaba hadli mayo. waaqic la joogo waxaa weeye in gabdhaha Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay 30 sano u dambeysay ay ahaayeen kuwii dalka iyo dadka badbaadiyey, oo inta suuqa galay mid yaanya u gada, mid qudaar u gada, mid meelaha ka shaqaysa, mid dhulka xaaqda, kulli waxay ciyaalkooda koriyeen. yacni waanu dayacnay mas'uuliyadda naga saarnayd qoyska haddaan ragnahay. runta in isku sheegaa fiican. waanu dayacnay, waxaan noqonay kuwo qabiil isku ceyrsanaya oo 9 qabiil isku dagaalaya oo caruurtii dayacay. mid dhintay oo caruurtiisii mas'uuliyaddii hooyadii fuushay. waxaan noqonay mid iska qayilaya oo fadhi ku dirir fadhiya oo nolosha ka dhacay oo warba u hayn ciyaalkiisii oo hortii dhabarka u ridatay mas'uuliyaddii. waxaasoo dhan waxa dhabarka u ritay aan dayacnay waa gabar, waa hooyo. marka waxaasoo dhan ayagoo la aamusan oo dul qaadanaya oo mas'uuliyadda intaa laga haya inaa maanta dhahayd dumarka waxaa nala kugu abuuray inaan ku raaxaysano. yacni waaqica uu ninkaas joogo waa xagee. fikir 200 sano ka hor laga yaabay inuu jiri jiro kale baa laga yaabaa buu aaminsan. weligeedna gabdhuhu ma shaqayn karaan, taan waa iska sheeko. yacni markii baadiyaha la joogayna gabdhuhu waxay ahaayeen mid aqalkeeda samaysata, aqalkeeda dhisata. waxay ahayd mid aqalka samaysa, rara samaysa oo dhir samaysa oo weelkii samaysa oo wax walba samaysa oo guriga dhista oo xoolaha raacdo oo ciyaalka korisa. oo yacni qof baadiyaha markay joogtayna waxay ahayd dhaqankeena hore qof adag oo karti leh oo wax soo saar leh. magaalada markay timidna oo dadkii magaaloobayna hadda waa aragtaan waxa caruur korinaya, waxa suuqyada Soomaaliya dhan fiiri 80% waa gabdho wax iibinaya. ganacsatada yararka oo dhan waa dumar. waxaasna ciyaal bay ku koriyaan. marka inaad dhahayd taas ka soo boodid dumar waxaan lagu abuuray inaan ku raaxaysano logic ma. waxaan leeyahay ninkaasoo waxaas fikirkaas haddii aad fikirka aaminsan tahana yacni sababee waxaasan ku aaminsanahay fikir qalalan oo ordaya lama rabe. waxaad ku aaminsan tahay waaqica jira la jaan qaadi mayo. waaqica hadda jira fikirkaas la jaan qaadi mayo. qof bini aadan adiga kula mida weeye. raaxasaa ugu baahan tahay waxaas wax aan soconay ma. marka fikirkaas naguma matalo, mana aaminsanin. waxna soo gashaday oo intaana soo leekaysiiyey oo waxna baray waa gabdho. marka abaalkoodana ma gudi karno. marka mid fikirkiisa aan weelayn karin marka nama matalo. waana idinka raali gelinaynaa. wabilaahi tawfiiq. idin macaanato.